mas-uuliyiinta dowladda Puntland ugu sarreysa ayaa gabi ahaan waxay mamnuucday burcadbadeed fadhiisin ka dhigata ama maraakiib la soo gasho xeebaha Puntland kadib markii ay deegaano ka mid ah Puntland ay noqotay meelo burcadbadeedu ay haystaan. arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli xeebaha dowladda Puntland lagu hayso ilaa 5 markab oo isugu jira kuwa ganacsi iyo kuwa dowladda ay leedahay. kuwaasoo loo wada haysto madax furasho ayaa kii ugu dambeeyay waxaa lagu afduubtay bishan aynu ku jirno 5teedii wuxuuna ahaa markab sida kiimiko oo ay saarnaayeen 18 baadmaaxayaal Filibiina. sidoo kale waxaa cadeeyay afduubka markabkan ciidamada badda ee midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in markabkan siday kiimikada laguna magacaabo MT Motivator lagu afduubtay badda cas meel u jirta 13,000 oo kiiloomitir biyaha Soomaaliya. Here in this operation have had a lot of success over the last 12 months. haddaba taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug Muuse Xasaasi oo ka hadlay howlgal lagu ugaarsanayo burcadbadeedda joogta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegay in gabi ahaanba laga mamnuucay gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug burcadbadeedda ka qowleysata biyaha caalamiga ee adduunka. digayna oo kale nimanka ay dhalinyarada oo loo yaqaan burcadbadeedku inaysan gobolka Mudug ka dhigan wada ay maraan oo halaqyo mareena haddii aan ku qabanno ciidamada booliska hadda kadib ay ku qabtaan maaha markii ugu horeysay ay Puntland gabi ahaan ka mamnuucday deegaanada Puntland burcadbadeedda ka qowleysata biyaha caalamiga. haddana waxa magaalada Gaalkacyo ee xarunta Mudug laga soo saaray wareegto lagu mamnuucayo burcadbadeedda inay ku dhex noolaato magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Cabdiladiif Cabdiraxmaan Warsame TV-ga Universal magaalada Gaalkacyo.